kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha inagu xidhan meel walboo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan kusoo dhawaada wararka iyo warbixinada aan idinkaga helno waddankeena hooye ee soomaaliya. qodobada maanta ugu waaweyn waxaa qayb ka ah madaxweyne axmed qoorqoor oo warbixin iyo xogo amni ka dhageystay saraakiil ciidan, caqabada hor leh oo soo wajahday ganacsatada dalka kenya ee qaadka dhoofintiisa loo fasaxay, xog hoose oo aynu ka helayno madaxtooyada kismaayo oo sheegaysa in madaxweyne axmed madoobe uu qorsheynayo xilka qaadis deg deg inuu ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan. qorshaha culus ee uu damacsan yahay ee xilka uu qaadayo oo faahfaahsan warbixin ayaan idinkaga helnaa. amar uu bixiyey ra-iisul wasaare xamse barre oo deg deg loo fuliyey warbixin ayaan idinkaga helna. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse barre cabdi oo qarka u saaran in ay ku adkaato qorshihiisa soo magacaabidda golihiisa cusub ee wasiirada. qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo muuqaalkan oo aad kaga bogan doontaan. haddii ay tahay markaa koowaad ee aad soo booqatay, fadlan subscribe garee janalkan, sidoo kale like garee muuqaalkan iyo muuqaalada ka dambeeya. qaybta faallada kommentiga ra'yigaaga inoogu reeb. waxaan rajaynaynaa in halkaasi aynu iskula wada macaamili doono. aynu ku horeynay qodobkayaga koowaad. xogayaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed abubakar subeyr ayaa gabaldhicii maanta magaalada jowhar u diray diyaarad markaasi daawo siday. qaraxii foosha xumaa ee maanta ka dhacay magaalada jowhar, inta ku dhimatay allah u naxariisto, dhaawacana allaha siiya caafimaad taama, anigoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre. waxaan hadda deg deg daawo ugu diray jowhar. waxaan sidoo kale u diray buu yidhi diyaarad si ay usoo qaado dhaawaca aniga kooxdeyda, gaar ahaana cabdifataax cabdinuur iyo maxamed bashiir cumar, wasiiradda gargaarka marwe khadiija maxamed diiriye iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay senator duufle. waxaan joognaa garoonka diyaaradaha dancadde si aan dhaawac usoo daweyno, islamarkaana aanu isku dayno inaanu ka guddoono dhaawaca halkaasi, kadibna aan u geyno cisbitaaladii aan ugu talagalnay buu yidhi. aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay howshan muhiimka ah. deg deg ayay ahayd buu yidhi xogahaye subeyr. haddaba isla wararka qaraxii khasaaraha geystay ee ka dhacay jowhar, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa goordhaweyd faahfaahin ka bixiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaaladaasi. madaxweynaha ayaa sheegay in 3 qof oo meydkooda laga soo saaray guryo ku dumay hoostooda ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, halka 7 qof oo kale ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyey cali gudlaawe. 3 qof oo geeriyootay ayuu sheegay madaxweynuhu in ay kala hayeen 1 askari iyo 2 qof oo shacab ah. sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxaasi uu geystay burbur baaxad leh oo soo gaaray dhismayaasha hoteelkii lala beegsaday iyo dhammaanba guryihii ku xeernaa oo dad shacab ay degnaayeen. sida ay noo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah, waxaa galabta magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey cisbitaalka magaalada muqdisho qaar ka mid a dhaawacyadii daranaa ee ka dhashay qaraxaasi, kuwa oo dayuurad lagaga soo qaaday jowhar. madaxweyne cali gudlaawe ayaa kooxdii fulisay qaraxan waxauu ku tilmaamay musiibo hortaagan nolosha iyo horumarka dadka soomaaliyeed, isagoo ku baaqay in meel looga soo wada jeesto oo lasoo afjaro si looga baaqsado khasaaraha joogtada ay geysanayaan. dhanka kale, madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug, kaasoo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusamareeb. shirkan oo lagu lafagurayay amniga deegaanada galmudug ayaa daba socda safar dhowaan oo madaxweynaha galmudug ku tagay deegaanada furiimaha iyo goobihii lagula dagaalamayay al-shabaab, kuwa oo madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor uu kula soo kulmay shacab iyo maamulka deegaankaasi. shirkan looga hadlayay amniga ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug, wasiirka arrimaha gudaha, wasiir dowlaha amniga ahna kusimaha wasiirka amniga, 2 guddoomiye ee gobolka mudug iyo galgaduud, saraakiisha ciidamada atmis, saraakiisha ciidamada qalabka sida ee deegaanada galmudug iyo maamulka degmada dhuusamareeb. shirkan ayaa sidoo kale looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa, sarena loogu qaadi lahaa amniga deegaanada iyo degmooyinka galmudug, iyadoo madaxweyne axmed cabdi kaariye uu warbixin iyo xogo amni ka dhageystay saraakiil kala duwan oo kasoo qaybgalay shirkan. madaxweynaha galmudug ayaa ku bogaadiyey saraakiishay guud ahaan ciidanka sida ay ugu hortaagan yihiin falalka ka dhanka amniga, sidoo kalena waxa uu ku booriyey ciidamada xoojinta ammaanka. iminkana warbixin ku saabsan heshiiskii dhowaan dhexmaray ee kenya iyo sidoo kale soomaaliya
iyo duulimaadka tooska ee diyaaradaha sida qaadka ee magaalada muqdisho dhowaan ka degi doono. ganacsatada qaadka ayaa waxaa laga yaabaa in dhoofintiisa ay sugaan in ka badan intii lagu waday in lagu geeyo magaalada muqdisho maalmo un kadib markii kenya iyo soomaaliya ay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo dhoofinta jaadka. sababta ayaa lagu sheegay in shuruudo lagu xidhay kadib markii dhowaan la ansixiyey xeerar cusub oo dhanka dalaga beeraha. ganacsatada iyo beeraleyda ayaa si weyn usoo dhoweeyey dib u furista suuqa soomaaliya, balse waxay ugu baaqeen dowladda in ay dedejiso bixinta shatiyada aan yidhaahda dhoofinta sida uu dhigayo sharciga. gudoomiyaha ururka ganacsiga qaadka kimadi munjuri ayuu warbaahinta u sheegay in hay-adda beeraha iyo cunnada aysan weli shatiyada siinin ilaa 500 oo ganacsatada qaadka dhoofisa. si deg deg ayaan ugu baahannahay shatiyada sababtoo ah ma mari karno qaadka annaga oo aan u hogaansamayn shuruucda buu yidhi. kenya iyo soomaaliya ayaa jimcihii dib usoo nooleeyey xiriirkii labada dal kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la kulmay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ay isku afgarteen in ganacsigii iyo dulimaadyadii labada dal uu si deg dega dib ugu bilaabmo. dhanka kalena haddii hore aynu sii soconno, mahad salaad oo la wareegay dhaqaalihii gobolka gedo wax badan ka ogow taliyaha nabad sugidda gobolka gedo bakaal kooke ayaa dib ugu laabtay gobolkaasi dhowr cisho uu ku sugnaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya. haddaba islamarkaana dhowr kulan oo ay yeesheen bakaal kooke iyo taliyaha niisa mahad salaad ayaa kusoo dhammaaday is-afaham iyo sidoo kale wada shaqayn. dhowr qodob ayaa looga hadlay kulamadii labada dhinac ay yeesheen: mustaqbalka siyaasadeed ee gobolka gedo, wada shaqaynta garabka haysto gedo, dowladda federaalk soomaaliya iyo qorshaha jubbaland ay gedo ku tegayso. nidaamka ciidamada ee jooga gobolka gedo waxay toos u hoostegayaan dowladda dhexe, halka maamulka gobolkana loo madax baneynayo jubbaland. dhaqaalaha garoomada gedo kasoo xaroonaya oo ay shuraako ku ahayeen bakaal iyo xildhibaan cabdulaahi aadan kulane ayaa hadda waxaa heshiis ku gaaray in ay shuraako ku noqdaan bakaal iyo agaasime mahad salaad. dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa mid walba qorsho gooni ah uu ka leeyahay gobolka gedo. dhanka saaxiibada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay qabaan in toos loo hoosgeyn doono gedo axmed madoobe si dagaalka axmed madoobe looga tuurayo meesha uu durbaba uga bilowdo gobolkaasi. madaxweyne axmed madoobe ayaa qabaa in mas-uuliyiinta gedo ay haysato ay toos ay la furanayaan gorgoortan siyaasadeed oo ay dowladda federaalk soomaaliya ay ka madax bannaan tahay, dibna gobolka uu ugu soo laabanaya gacantii jubbaland si buuxdo. inkastoo wadahadal ee qadka telefoonka ay yeesheen axmed iyo xubnaha gobolka gedo joogo, haddana waxaa muuqataa in wadahadaladaasi ay dhanka kala aadeen. siyaasiyiinta muqdisho joogta ayaa iyaguna u xusul doobayaa mar haddii dowladda dhexe iyo axmed ay dagaalami doonaan in gedo iyagana gacanta loo geliyo oo gacantooda laga saaro gobolka. haddaba maamulka hadda haysto maadaama aanan la aamini karin, maadaama dowladdii farmaajo ay lasoo shaqeeyeen, laakiin weli haddaba saxanada siyaasadeed lagu gadgadinayo aan idhaahday miisaan badan kuma lahan kuwa oo qaar ka mid a gobolka in ay imaadaan lagu hor istaagay. ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyey ee dhismaha xukuumaddiisa. maalmihii tegay xamse waxauu la kulmay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya si uu u weydiiyo talooyin la xidhiidha nooca xukuumadda ee munaasabka ku ah dowladda marxaladda adag ee imika taagan. mowduuca ugu weyn ee miiska saaran waa tirada xukuumadda soo socota. waxaa jira siyaasiyiin iyo qabiilo sheegtay ballan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la galay maalmihii ololaha oo ah helista wasiiro dheeri ah, laakiin ra-iisul wasaare xamse waxaa laga soo wariyey inuu rabo dhismaha xukuumad kooban oo ku jaangooyn amaba uu markaasi ku jaango-an aan idhaahde danta qaranka dalkana ka samata bixin karta maalmaha adag oo aan ahayn mid lagu qancinayo shakhsiyaad gaara ama beelo gaar ah. ra-iisul wasaaruhu waxuu rabaa in la eego tayada oo aan la eegin tirada ama qancinta shaqsi. sidaa daraaddeed waxauu diiradda saarayaa miisaanka iyo xirfadaha dadka uu ka dhigayo wasiirada, ayuu yiri mid ka mid a dadka ku dhowdhow ra-iisul wasaare xamse. xubno ka mid a kooxdii ololaha ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa rabaa in tirada xukuumadda la gaarsiiyo ilaa iyo 30 wasiir, taasoo ka dhigan in la abuuro 4 wasaaradood oo cusub. si wasaaradahaasi loo sameeyo waa in la kala jarjaraya wasaarado horey u jiray. soomaaliya waxay ku jirtaa xilli abaar ah, dhaqaalihii hoos ayuu u dhacay, sicir bararkii macishada kor ay u kacday oo uu qaranka u baahan yahay. haddaba kab maaliyadeed iyo u dhimrin
iyadoo xaaladaasi adag loo jeedo dadka maanta ololaha ugu jira in 4 wasaaradood la soo kordhiyo oo miisaaniyad gaara iyo xafiisyo loo unko waa kuwo danahooda ka hor imaanayo tan qaranka ayuu leeyahay mid ka mid a falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda. aad ayaa loo dhaliilsan yahay isku dayga dalka oo dhan dhaqankiisa dawliga ahaa iyo magacyada markaasi shaac noqday ee wasiiradihiisa loogu bedelayo dana saaxiibtinimo la xidhiidho. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu isagu u dagaalamayaa in xukuumad ku kooban 25 wasaaradood ama sida ay hadda tahay oo ah 26 wasaaradood haddii tiisa la raacayo oo la eegayo dan qaran waxa la qaadan doonaa 25 wasaaradood oo ay 5 beelood wax loo qaybsado u heli doonaan midkiiba 5 wasiir uu hanan karo. haddii 26kii wasaaradood lagu celinayo reer puntland ayaa laga yaabaa inuu aado wasiirka dheeriga oo ay soo kordhisay dowladdii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ku adkaan doontaa in uu soomaalida u sharaxo inuu qancinta saaxiibadiis u abuuray wasaarado cusub 30 wasaaradood iyo soomaalida maanta markaasi la kaalmeeyo suurtagal ma aha. ilo muhiima waxay sheegayaan in uu ra-iisul wasaare xamse ku dhow yahay in uu saaxiibadiis gaar ahaana xisbiga UPD ay iskala wada tirsan yihiin uu ku qanciyo inaan wasaaradaha la kordhin oo aan xukuumad markaasi tayada laga dilin. haddii uu taasi ku guuleysto waxay bilow u tahay inuu qorshooyin badan oo dowladnimada taabanayo ku qancin doono saaxiibadiis. xamse cabdi barre oo ay baarlamaanka soomaalida codka kalsoonida siiyeen 25 bishii lasoo dhaafay ee juun ayaa haysta dhowr cisho oo dheeri ah si uu xukuumadda usoo dhiso.